ganacsatada ka soo jeeda Puntland ayaa bilaabay in dhaqaalahooda ay kala soo cararaan deegaanada maamulka Somaliland oo ka arrimiyay kadib cabsi soo food saartay toddobaadyadii ugu dambeeyay ganacsatada reer Puntland taasoo keentay tallaabo uu qaaday madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ganacsatada bilowday in dhaqaalahooda ay kala soo cararaan deegaanada Somaliland ayaa dekada Berbera kala soo degi jiray konteenarada waaweyn iyagoona kaydin iyo iibgeyn ay u ahayd caasimadda Somaliland ee Hargeysa. ganacsatada reer Puntland ayaa bilaabay in dhaqaalahooda ugu badan ay kala soo cararaan magaalada Hargeysa iyo deegaanada maamulkaasi oo ka arrimiyay guud ahaan waxaana lacagihii ugu badnaa ee akoonada ugu jiray ganacsatada reer Puntland ay bilaabeen inay u soo wareejiyaan deegaanada Puntland oo Garowe ay ugu horeyso waxaana haatan muuqanaya in Saciid Cabdullaahi Deni ganacsatadan uu kula taliyay in deegaanada maamulkooda ay u soo wareejiyaan hantidooda oo halis badan haatan ugu jirta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. xogo soo aan helnay ayaana sheegay in ganacsatadan dekada Berbera maraakiibtii ugu soo xiran jirtay u weeciyeen dekada Boosaaso iyo midda Garaacad. toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa muuqanaya in ganacsatadaasi ay ka soo cararayeen deegaanada Somaliland kuwaasoo Garowe soo gaarayay. wasiirka ganacsiga Puntland iyo ganacsatadan ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Garowe iyagoona ka wada hadlay sida loo maareynayo ganacsiga Somaliland laga soo wareejinayo deegaanada Puntland loo soo wareejinayo iyo qaabkay u canshuuri doonto ganacsiga reer Puntland ay ku lahaayeen deegaanada Somaliland kuwaasoo ay ugu horeeyaan konteenarada shirkadaha reer Puntland ay ku soo xiran doonaan magaalada Boosaaso dekedeeda iyo Garaacad. markan haddii aynu ogno taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland Sareeya Gaas Nuux Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegasho la yaab leh ka soo saaray dagaal culus oo weli ka soconaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaasoo galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah. General Nuux Ismaaciil Taani ayaa shaaca ka qaadin Laascaanood ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab iyo Puntland sidoo hadalka u dhigay taliyaha. Al-Shabaab baa joogta Laascaanood oo ka dagaalamaysa waxaana la dagaalamaya oo garab socda Puntland iyo kuwa kale oo koonfur ka soo baxsaday ayuu yiri Nuux Ismaaciil Taani. sidoo kale waxa uu tilmaamay haddii aan laga hortagin duulaanka uu sheegay in lagu soo qaaday Laascaanood ay halis noqonayso Somaliland, Djibouti iyo Itoobiya. halkan haddii aan shabaab laga sifayn Itoobiya, Djibouti iyo Somaliland khatar bay ku tahay ayuu mar kale yiri taliyaha ciidamada militariga Somaliland. waxaa kale oo intaasi ku daray in Somaliland ay difaacayso nabadgelyada Geeska Afrika ayna diidan tahay waxa ay ugu yeeraan argagixiso in saldhig ay ka dhigato halkaasi. dagaalka Laascaanood ayaa galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray guud ahaan magaalada Laascaanood. waxaa kaloo ka barakacay magaalada inta badan qoysaskii deganaa kuwaas oo kor u dhaafaya kumanaan kun sida ay shaaca ka qaaday qaramada midoobay. lama oga siday wax noqon doonaan iyo halkay ku dambayn doonto xaaladda magaalada Laascaanood maadaama furin dagaal haatan halkaasi ay noqotay. Somalilandna weli ay ku adkaysanayso in halkaasi ay kula dagaalamayso dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. markan haddii aynu ogno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka soconaya qorshayaal halis oo ay wadaan ciidamada hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed taasi oo halis shacabka Muqdisho u gelinaysa in iska horimaad ka dhaxdasha ciidamada nisa iyo kuwa kale ee qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya in waxyeello ay ka soo gaarto. xogaha soo aan helnay ayaa sheegaya in nabad sugidda ka amar qaadata Mahad Maxamed Salaad Muqdisho ay ka bilaabeen arrin caqabad ku noqon karta nabadgelyada caasimadda Muqdisho taasi oo halis badan ay ku gadaaman tahay. ciidamada nisa iyo kuwa ka tirsan militariga Soomaaliya ayaana arrinta nisa ay wadda maanta darteeda ugu dagaalamay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dagaalkan ayaa waxaa ku geeriyooday askar ka tirsan ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed kaasi oo dhexmaray ciidamo militari ah iyo kuwa ka tirsan dharcadda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed hoos tagta. goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in rasaasta isweydaarsanayeen ciidamadan ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxyeello ka soo gaartay dad shacaban waxba galabsan. sababta dagaalka uu ku bilowdan ay lahaayeen ciidamada hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ka socday dharcadda u badnaa waxaana taasi ay sababtay in ciidanka militariga ay dil u geystaan ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda. ciidankan oo la sheegay inay hoos tagaan taliyaha guutada afraad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xaaladda ayaa haatan caadi ah waxaana muuqanaya in ciidamada nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay halis gelinayaan nafsadda mas'uuliyiinta dowladda qaybta ka iyo shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho.
markan haddii aynu ogna khilaaf xoogan oo ka taagan gudaha maamulka gobolka Banaadir wararka laga helay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in khilaaf xoogan uu ka taagan yahay halkaasi wuxuuna salka ku hayaa cid noqonaysa kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiye Yuusuf Madaale ayaa u baxay safar dibadeed tan iyo markaasi waxaa soo ifbaxay khilaaf ka taagan xilka kusimaha kaasi oo Madaale u dhiibay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Yabo talaabada uu qaaday Madaale ayaa xadgudub ku ah awood qaybsiga uu ku dhisan yahay maamulka gobolka Banaadir iyo magacabista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sababtoo ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir waa gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda oo ah Ciise Gure hase yeeshee Madaale ayaa wararku ay sheegayaan inuu dagaal shakhsi ah oo aan loogeyn halka uu salka ku hayo uu kala dhaxeeyo Ciise Gure gudoomiye Yuusuf Madaale ayaana qoray inta uusan dalka ka dhoofin Isniintii warqad uu ku cadeynayo in Maxamed Axmed Diriye Yabo uu u magacaabay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir taasi oo ay aragtay sirta media nuqul kamida warqadaasi xogtan helna ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale uu saaxiib la yahay ku-xigeenka amniga taasi oo keentay inuu ka dhigo kusime intuu dalka ka maqan yahay sharcigana ka talaabsado waxaana soo baxaysa in muddooyinkii dambe uu aad u xumaa xiriirka Madaale kala dhaxeeya saddexda gudoomiye ku-xigeen ee kale waxayna xilligan si midaysan uga soo horjeedaan talaabada Madaale kusimo uga dhigay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda beesha mursada ayaa talaabo arrintan ay uga dhiidhinayaan waxay ka wadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana maalmaha soo socda la filayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintan uu soo farageliyo isla markaana wardhaba ay ka soo saaraan beesha mursade guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaya warka ka daawanaysan channelka Sirta Media tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sirta Media